internet adigoonu jabin snapchat-kana u queen arkaaga whatsapp-ka iyo youtube wil duufino facebook au noqonato facebook au noqonato facebook au noqonato facebook au noqonato youtube-ka hagelin snapchat Facebook internet adigoonu jabin snapchat-kana u queen arkaaga whatsapp-ka iyo youtube wil duufino facebook au noqonato facebook au noqonato facebook au noqonato facebook au noqonato youtube-ka hagelin snapchat Facebook kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baa khayrta hawada naga daawanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeeni baraha bulshada todobaadkiiba hal mar ayaad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV daawadayaal sida caadada marka hore bay noo ahayd waxa si talantaali ah in la socodsiin jirtay anoo Nimco Jamaal Maxamed iyo Axmed Sataar Cabdi Xuseen ma sanad Nimco kulli wad ogsoontihiin inta badan waxaan ku soo qaadan jirnay baraha bulshada waxyaabaha ugu leeyahay badan isla markaasina la soo dhigo Facebook-yada Instagram-yada YouTube-yada Axmed Sataar Cabdi Xuseen Nimco qodobka nagu horeeyay noo soo qob qodobka nagu horeeyay waxa weeyaan gabadh dalka Canada u dhalatay oo caruusada ahayd ayaa dadkii ka soo qayb galay arooskeeda waxay ka codsatay amba ka dalbatay inuu qofkiiba uu la yimaado munaasabada arooska $1500 bal arintaasi aan daawano kadibna aynu isku soo noqono dalka Canada gabadh caruusada ayaa joojisay inuu qabsoomo arooskeedu kadib markii ay ku guul daraysatay inay soo dhameystiranto lacagtii ay ku xujaysay inay bixiyaan martida ka soo qayb galaysa arooska Susan ayaa qorshaysay inay guursato nin ay caruurnimadii soo wada qaateen waxaana qaabka aroosku u dhacayo ay ka dhigtay mid ay martida kaga dalbatay in qofkii ka soo qayb galaya xafladda aroosku uu bixiyo $1500 si ay riyadoodu ugu rumowdo Susan ayaa barteeda Facebook kula soo wadaagtay asxaabteeda iyo qaraabadeeda danaynaysa inay arooskeeda ka soo qayb galaan fariin ah waxaan idin cadaynaynaa haddii aydan ku deeqayn $1500 kuguma marti qaadayno arooskayaga gaarka ah waa kii kaliya ee xafladda waqtiga nolosha hase yeeshee fariintaasi ay caruusadu soo dhigtay Facebook ayaa waxa ka soo jawaabay qoyska nin ay hore iskugu cindanaayeen oo calafku ka adeegay kuwaasoo ku dhawaaqay inay bixinayaan $3000 halka 8 qof oo kalena ay ku dhawaaqeen inay bixinayaan $500 taasoo wadarta guud ka dhigaysa $15,000 sidaa daraadeedna ay Susan ka cadhootay lacagtaasi gaari weyday intii ay qorshaysatay oo ahayd $60,000 oo ay tilmaantay in ay riyadeeda ku gaadhayso haddii ay helaan lacagtaasi waxa la arkay tibka war arooska ka waran arooskan cajiib ah aan waxaan waliga ma maqal bada in maxay hay'ad arooska marad ka soo qayb galaysid qasab lacag inaad timaado duceysada cunto mooyaane laakiin lacag laga iyo duceeyo hilibka mooyaane gabadhan waxay doonaysaa lacag $60,000 way u gaadhiyo sheeto ma meesha kaashay kadibna maxay sameysay arooskii waxaan ku ka tala baxday waana cadho waan saas ku joojisay waxaan arkay gabadhiyo taajkiisii jiidayso meeshii koofeerka laga baxayo dadkii markay maqleen $1500 nin kasta wuxuu si meesha ma bangi ba qofka soo guriisa seexdaba in yar baa u yimid timi intina wax keentay $10,000 aan wax ku qoslay aad nin baa wuxuu bixiyay $300 oo $1,000 waxa markii hore ay doonayeen iskuursadaan bay ahayd xiriir ka dhaxay markaa wuxuu si bal adigu horeysid sideed kalena waxay bixiyeen $15,000 rabtay markaa 15 xisaab ku tagtay 15 bay tagtay 60 markaa uma dhawayd xitaa 30 baa xitaa aanay gaadhin axmed ilaa yaxad markii aan u fiirsano lacagta maxay ku filistro waxay gabadha tiray waxaan rabaa lacagta mustaqbalkayga ku dhisto malaa ninka midda kale qoysaska Canada dadkaas waa wadamo horumaray oo aad dhaqaale u haya oo aad u shaqaystay laakiin lixdan kun bangi ma ku furleed meherad gaari kiibsaleed misaas toba ku galeed ilaa hadda lama ogaha markay soo dhigtay Facebook waxay tiri qofna kama soo qayb gali hadaan invitation siimayaa dadka markaa nimco markaa wax meesha goob qasaaraam soo qof goob lagu faa'iideeyo marka anigu waa arin aad kana marka xayeysiin wada soo qasbiyeen ilaa yaxad haddaan intaasi kaga soo noqono warbixinta aadka cajiibka badan ee dalka Canada maxay heeday hadalhayntiisa aad u badatay baraha bulshada maxay heeday la soo dhigay
أنا دنكيga soo qabto anagu waxaan ku naqaanay nin waxadan inuu birigoor dhaqaan nin waxada inta badan ragga tuuga inta badan ragga la yiraahdo marka la dhaho gabadh waxadan waba nix jiray waran wax la kulay si laga yaqaan baraanti aad dalka Sacuudi Carabiya gabadh ayaa xaday gaari bal sababtay u xaday iyo sida ay u xaday iyo bal gaariga inay qaaday iyo inay si kale u qaaday bal eegno kadibna dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ah ayaa kamarada ammaanka ee loo yaqaano CCTV ay qabatay gabadha xadaysa gaari magaalada Damaam ee dalka Sacuudi Arabiya sida ay ku waramayaan warbaahinta dalkaasi muuqaalkan xatooyada muujinaya ayaa dhaxulaya baraha bulshada waxaanu muujinayaa nin gaari dhigaya meel baarkin ah oo ka degaya gaariga oo istaaran oo wajahaya meel laga dukaamaysto balse wax yar kadib gabadh ka soo degtay gaari kale oo wadada marayay ayaa u soo dhaqaaqday dhinacii gaariga waxaanay haweenaadaasi xidhnayd koofiyad iyo muraayada indhaha lagu qaato kadib markii si dhaqso ah ay dhinacyada iyo gaariga u daymootay ayaa waxa ay gudaha u gashay gaarigii ninku ka degay sidaasi ayaanay ku kaxaysatay muuqaalku muu xaqiijin xilliga fiideoga la qaaday iyo haweenayda xaday gaariga dalka ay u dhalatay toona balse dad fara badan oo muuqaalka markay baraha bulshada ku arkeen fikiro kala duwan ka dhiibtay ayaa yidhi way caddahay in budhcadgaankiisi ay adeegsadeen haweenaydan si ay gaadhiga ugu xadaan ma jiraa qof gaadhiga ka tegaya isagoo istaadhan oo u cararaya dhinaca bakhaarka waxay u qalantaa abaalmarin maadaama oo ay tahay gabadhii u horeysay ee gaadhi xaday in Sacuudiga aan waxaan ka aaminsanaa balaga aaminsanay qofka waxaad labadaas la gooyaa xatal go'dan loo geeyo gabadhan waxa looga mid kale gabadha si ay ugu dhiirato inay gaar xado dumarkii la qabo baabur inay kaxiyaan loo diidayo imika la u doodiyo boqor marka gabadha si ay ugu dhiirtay inay gaari gabadha xado waan ku taageersanahay darawalku laakiin furaha gaari istaan wuxuu ka tagay meel buu ka tugaamaysanay ayuu ka tagay gaarigii maxay heeday istaaray ayuu ka tagay iyadoo ma indhaxin taareeraha iska egtay ay gaariga xaysay laakiin gaangis wax soo dirtay gabadhu kulli marka kamarada aad ka dareemaysa gabadha in xoogaa rag baa soo direed moodo gaangis inay adiyad imika baraha bulshada inta badan la soo dhigayay ee dalka Sacuudiga in markii ay de committee laga bixinay waxa committee marka soo harbeelay xaga hoose inta badan Axmed Sataaro Axmedo adiyad in maxay heeday baraha bulshada markii la soo dhigay qaar waxay dhahdeen waxay soo adeegsatay de ma fi burcad badeed waxa aadiyad laakiin dumarka kulli waa looga yaraa xaga lagu fiican yahay oo lagu fiican yahay gaari bay ka soo degtay ayuu markaa saareen haye gaari waa aadiyad laakiin lama xadin laakiin gaarigaas uu istaarnaa ninkaas oo tukaamaysanayay maskiinka carabka la sheegay gabadhu inaan wadanka u dhalmo malayn waa jinabi aadiyad inay tagan malayn laakiin hablo badan aan arkay waxay dhahdeen baga waxa gaariga ninku muxuu ga tagay isagoo meel kulli waa doonaysaa inaad gaarigaas ku xaysan laakiin dashilkiinu aad u baday waad iska lahayd doontaan wax dambe walidaa wadayaal waxaan ku wada jirnaa barnaamijkeeni baraha bulshada qodobka xige ee Axmed inoo soo qabanaysa maxay tahay waxa weeyaan iskuulada laga leeyahay in dalka Imaaraadka waliba ku gaarka loo leeyahay ayaa waxay waalidiintii ardayda ku qasbeen in balcad cusub loo soo talo iyagoo koodi hore aanay duugoobin waalidkiina waxay barta ka muujiyeen dhaleecin fara badan bal arintaasi ana wadaawna kadibna isku soo noqonaa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee imaaradda sharjaac ee isutaga imaaraadka carabta ayaa looga digay inay waalid ay ku qasbaan inay darees cusub carruurtooda ay u iibiyaan xilliga la gelayo sanad dugsiyeedka cusub ee 2018-2019 golaha waxbarashada ee sharjaac ee isutagaasi imaaraadka carabta ayaa waxa uu sheegay inaanay dugsiyada ogolaanaynin inay waalidkooda ay ku qasbaan inay darees u iibiyaan carruurtooda marka laga reebo kiisaska in la dhalan rogayo midabka dugsiyada lagu dhigto oo markaasi waalidku ay ku qasban yihiin inay dareeskaasi asalka ah ee dugsiyada markaasi carruurtoodu ay u iibiyaan warmurtiyeedkan oo ka soo baxay golaha waxbarashada ee sharjaac ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in markii carruurtu ay haystaan darees dheeraad ah oo sanad dugsiyeedkii hore ay iibsadeen in aanay jirin sabab dugsiyadu ay uga dalbadaan wakhtigan waalidkooda lacag dheeraad ah oo darees cusub ay ardayda loogu talo wakhtigan waa haddii aanay carruurtoodu ka dalban
arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii hooyo carabiyad ahi ay ka cabatay in dugsiyada uu dhigto inankeeda uu ku amray inay iibsato dres cusub oo qiimihiisu gaadhayo 300 oo dirham oo aanay jirin isbeddel dhinaca midabka dreska ah waxaana hooyadu intaasi ku dartay in dugsigaasi uu muddo u qabtay inay ku soo iibiso dres cusub waxaanay welwel ka muujisay muhiimadda ay leedahay in lala socdo dugsiyada gaarka ah si loo hubiyo inay qawaamiinta u hoggaansan yihiin gaar ahaana marka ay bilaabayaan sanad dugsiyeedka cusub ee 2018-2019 dhinaca kalena boqorka taajka imaaraadka abudhabay ee sheekh maxamed bin sayid al nahyaan oo sidoo kale ah ku-xigeenka la taliyaha sare ee ciidamada isutaga imaaraadkaasi carabta ayaa si la yaab leh waxa uu ula fadhiistay ardayda maalintii u horreysay ee ay bilaamaysay ku soo noqoshada sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaana lagu arkayay bartiisa baraha bulshada ee twitterka inuu soo dhigay muuqaalo ka turjumaya ama sheegaya la kulanka ardaydaasi ku jira wakhtiyadaasi ay gelayaan dugsiyada iyo kulankii uu wakhtigaasi la qaatay boqorka taajka imaaraadka abudhabay axmedow anigu waxaan maqli jiray inta badan maaragtay marka aynu iskuuladeenagu xilligaas kala wareeg way siibsanaa ducdi naguma qasabto haddeenkii hore si xidhanay haddii ay kan cusub xidhno waa isla halkii laakiin waxaan ku qoslayay marka yidhaahdeen xitaa adoo kaaga cusub haysta mid kala soo iibso waxay ku leeyihiin dadkii dayartaa ruhaantii koley halkii qof dreeskiisana 300 dirham baa lagu jaraya waan lacag aad u tiro badan mid kale waxay yidhaahdeen in dawarlayaal ku dhex yaala iskuulka ayaaba nii samaynaysa suuqa ma soo iibsan kartaan waayo waxaad soo iibsanaysaan kaladii ka duwan marka waalidiintu ruhaantii koley aad bay uga cawdeen waa carabo koleyo dubay de wax ku nool dabaqad aad u heersanaysa markaa de iyagu waxay doonayaan wax wada laakiin waalidku aad bay badankooda ay uga dhiidhiyeen waxay yidhahdeen dreeska hore wax isbedel kama iman markaa may naga daayaan laakiin waa lagu qasbay ilmo kasta aad yaa 300 dirham ruhaantii koley marka lacagta afka qalaad doolarka lagu sarifo lacag aad u adag baa laga yaabaa ilaa 700 doolar ku dhawaanaysa حتى waxaan arkayay markii ugu horeysay iskuulka la furay iskuulada la furay qaar dariska xidhnaa waxa ku jira alnahya yo uu soo boqday laakiin haddana ruhaantii koley waalidku inta badan arrinkaas way kasoo horjeesteen sidoo kale waxaan arkaynay islaantii cabanaysayaduna ay ka cabanaysay aad iyo aad ruhaantii lacagtuna aad bay qaali u tahay okay nimco maxay noo xiga horta tagnay dubay meel kasta caran sacuudina carabti maanta ka kanada tagnay waa latin america iyo carabti maanta dhex wareegnay waxa loola jiray karigo haddana saar wakaa aanu soo noqonay magaalada hargeysa waa hargeysa in oranay Somaliland iyo Soomaaliinta afka Soomaaliga laga hadlamaya axmed waxaan ogsoonin amayn ogin anagu ayuu ii tuuray barbar maanta sheekadu way ka duwan sheekada waa sheeko kale xiiso leh tan maxay kula noqon doontaa wallahi nimca soo akhrisay bal nimca talba warjiraabaca kaaruun waleeri waxa soo baxday hees ha ooyin la dhaho ha ooyin wala aamusin yaa la aamusinaya cid kale ida la leeyahay ooyeysa wala aamusin soo socdaa heestii aamusintu ha ooyin baraha bulshada hablihiyo ooyaya anu waxa qoslayay arkaysa ilaa xad balyaanan inta ka hor dhicin horta bal andadka daawadayaashan u dirnaa Soomaha aad iyo aad bal intaaguna sida loo ooyay bal heestaas waxay la soo arka kadibna in isku soo noqdaan toddobaadkii ugu dambeeyay baraha bulshadu ay aadka u isticmaasho waxa ugu hadalhayn badnaa isla markaana si weyn loogu falanqeynayay isla mar ahaantaasina la soo dhigay muuqaalo ay iska soo duubeen dhalinyaro u badan hablo markaasi beyd ka mid ah heesta marka la soo gaadho uu qofku ilmaynayo amaba indhihiisa uu ilmo ka keenayo
dadkaasi ilmeynayey oo dunida daafaheeda ku kala noolaa islamarkaasina ahaa soomaali culimmada ku nool dhulka soomaalida ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga hadlay iyagoo khudbadihii jimcahee toddobaadkaasi ay ku soo qaateen islamarkaana ay bulshada uga digayeen muuqaalada noocaasi oo kale ah maaha markii ugu horraysay ee hees ay sidan oo kale bulshada u wada taabato islamarkaana baraha bulshada loogu muujiyo ficil ku jira heestaasi waxaana ugu dambaysay heestii sida weyn culimmadu iyo aqoon-yahanaduba ay uga hadleen ee ahayd barbar bulshadu ay ku wada xidhiidho ayaa yeeshay saamayntii ugu weyneyd muddooyinkii ugu dambeeyey taasoo ay dhallinyaradu ay ku soo kordhiyeen muuqaalo aad u la yaab leh oo markaasi ficilo lagu muujinayo iyo weliba sawirro qaabab kala duwan oo dhaqan ahaan ku cusub soomaalida oo ay soo geliyaan qaar ka mida dhallinyarada islamarkaasina baraha bulshada siyaabo kala duwan loogu fidinayey magaalada hargeysa kaliba meel kastoo kuley lagaga hadlo kuley dee afka Soomaaliga timana jacaylku biyo dhigay marka hore barbar buu tuuray qofku markuu barbar u dhacana marka dimka meel aad ka dhacdo wad ooyaysa maaragtay ayuu ii tuuray barbar afka ma garanay leele ilaa yaxad marka imka hadda tusaalahan ka bartan aad meel aad ka dhacdo kuley marka xanuusto ama dhawac soo gaaro oohinta ku xigta marka barbarkii oohin baa ka dambeysay marka hore jacaylku biyo dhigay waxa qoslima ku sheegay ayuu video daawanayna aad yaad qaar baby isku shubay حتى qaar ba in maartay baalada reyn softiga ha ididka xabalo isticmaalo ay basal ku soo ridayo si saatiri saa maray indina saa maray jacaylkii aad kadibna indi waxa soo daadanayo waa oohin baa soo daadanaysa aad yaad jacaylka nuucay in horta halka soo fiicantiin horta ma halka saas ku tiidin horta anigu kuma jirin dadkii maxay heeday oohinta waa ciidanka kamisoonka laga yaabo in malaha dhaxal ku soo jiraa deemaya heesaa dambe la soo wada waxay noqdaan kuwaasna ku jireen laakiin nin baba ku mooday adiga halka wali saastoonka fadhiyo wali aan kuma fadhiyo ciidanka wali kuma jiro laakiin kulay in jacaylku kulay qof kasto bilaadan uu ku abuuray yahay in laakiin in kulay aniga waa haya laakiin kulay si kala soo bandhigayaayo kulay waan hayo ay ka sheekeynaysaa in ooyina aamu أنا هو مانتا وحي هورا أوردن واحد كل مامي تعال كدير مركا واحد كديجان تهاي مركا واحد كديجان تهاي إن قف محيه ذي أو كله يكسر هورا كوسح مية أو كله كدمنا إما قف كلاس جعلاتين ونفس بيه هذا الشيء نفس بيه مركا إنه هرت المورا خرج دمر كليه أوي ورق لفت كده وغار بدن بيدقي إلا بحب اسمرين وانا أركي هذه برا بشر عاد أويين بقى كل ناس دات بدن كده حكي هذه مقلوبته عادية أي كهذين إن شعر كل واحد لدي نجحه هذا حتى وكلمة سيا وواحد كل ودرين وحنون بدي حنون كمدة كلا عندي والله
in madaxo kale dawa loo cunaa xanuunada kale dawa leeyahay laakiin sugu dawa male waxa ku dawa qofkii aad rabtay nimcoy inaad hesho haddii xitaa qofka aad caraf ku weydo aad qof kale aad guursato sida igu maqalaan in badan aan arkay tii hore waan caadi bay heedo dawa la wada stuuraya wala stuuraya amba jab amba dhimo laakiin imika waa la biyadigay waa ooyintaas ooyinta caadiga aad marka waxaan leenahay jacaylku waa dadka la saaraa dadka laftigooda waa si wacan u isticmaalaan inta badan waxa jacayl in dadka jacaylku si fiican u isticmaalaan in qofkii oo kale in qofkii inantii ula sheekaysanaya oo kale inan kale ka raacaya inantii laftigeeda inan kale ka chef fiican maanta xagga hablaan ku qaxayay ay raacaysaa marka kulay qasab wala ooyiya marka qofkaaga aad weydo marka inankiina hadii inantii way ooyay la isweydaarto inantiina markii inanka weydo ooyay aad marka waxaan leeyahay nooc aan yar ku darsan lahaa in de marka isticmaalaan deeshiisa kala qorta hadda maxkamadda waa la isla galay amba cid ninka la qarqaada hal helo laakiin wala isticmaalayaa hadda dadkii hadda waa la kala dhacayaa si aan ku soo saarayna halkaasun ragaad wata inta badan wasiyabiyada WhatsApp-ka iyo maxay la YouTube-yada ila yaxad heestana ma hadda heestu ugu horeysay inta maxay hadeegayga Soomaalida iyo baraha bulshada inta badan aad hadda anigu waxaan la yaabay waxaan arkay nin cadaan waa cadaan hadda waa yamani waa janibi hay ooyin buu ku jira hay anigu waa qosli maanta dhamarkan arkay jacaylka Soomaalida ma tagle carabtina mu gaaray carabtu maraya halkii barbare ku kalena maxay hayday qolbaha iyo safaaradihii la soo tuurayay barbartii intaba u gaaray aad daawadayaal intaasi waxaa nagaga eeg barnaamijkeena baraha bulshada waanu jecleen inaan sii wada joogno balse waqtiga awgeed noo saamixi waayeen anu mahad celiya intaan ka bixin dhanka soo saaraa waa barnaamijka waxa soo saaray xubnahan aadka u macaan ee nala wadaagayeen soo diyaariyay waa Axmed Cali Cige xaga kamarada waxa naga caawinaya barnaamijka laantii aan suurta galeen waa Sakariya Cabdi Barre iyo waliba Xamse sida oo kale waxaan u mahad celinaa dhanka hagaajinta farsamada isku dubridka intaba barnaamijkan aadka oo quruxda badan waa injineer Siraaji barnaamij lamida inta toddobaadada kale aan ku kulmi doono waa Axmed Sataar Cabdi Xuseen iyo Nimco Jibaal Maxamed oo inaga tagaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته internet adigoonu jabin snapchat-kana u quyin arkaaga whatsapp-ka iyo youtube wil duufino facebook au noqonato facebook au noqonato youtube-ka hagelin snapchat internet adigoonu jabin snapchat-kana u quyin arkaaga whatsapp-ka iyo youtube wil duufino facebook au noqonato youtube-ka hagelin snapchat facebook